waxay muuqaalkeena hore ku soo marnay qayb ka mid ah taariikhda hacking-ka. muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa markay bilaabantay in si ballaaran oo xoog badan loo adeegsado hacking-ka, iyadoo markaama ka baxay xaydaamkii oo hacking-ku ugu koobnaa meelo iyo cid gaar ah. waxaynu sidoo kale muuqaalkeena kusoo qaadanaynaa soo bixitaankii hacktivism-ka, maxaa si dhaliyay hacktivism-ka, iyo sida ay xilligan caalamka u qaabayso awoodda hacking. kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta dhalinyaro. 1980 waxaa bilaabmay in hacking-ka loo furo saaxad cusub, taasi oo ah in loo adeegsado khalkhalgelinta sistamyada si ka ballaaran xilliyadii hore. mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu horreeyay ee caalamka tusiyey awoodda hacking-ka waa Morris Worm oo dhacay 1988, waxaana loo tixgeliyay inuu yahay weerarkii ugu horreeyay ee internetka laga fuliyo. Wormkan wuxuu si dhaqso leh ugu faafay caalamka oo dhan, isagoo damiyey 10% internetka oo xilligaas ahayd percentage weyn oo saameyn leh. inkastoo Morris Worm uusan ahayn mid loogu talagalay inuu dhib u geysto kombiyuutarada iyo sistamyada, haddana waxa uu si effective ah u damiyey 10% internetka xilligaasi. taasina waxay muujinaysaa nuglaanshiyaha internetku uu u nugul yahay weerarada hacking-ka. tanina waxay muujisay khatarta hacking-ka. muddo kadib 1990 waxaa soo baxay mid ka mid ah hackerskii caalamka waarista badnaa, waana ninka lagu magacaabo Kevin Matrix. waxaanu ninkani sameeyey inuu dhex galo sistamyada, weliba uu muddo ku dhex jiro isagoo xogaha uu rabana si fog ugaga dhex bixayay sistamyadaasi. tanina waxay mar kale soo bandhigtay awoodda hacking-ka iyo xirfadda Kevin. waxaanu Kevin noqday mid ka mid ah hackerska lagu raadinta badan yahay caalamka, isagoo FBI raadinaysay muddo ku dhow 2 sano iyo badh. intaasi kadib waxaa soo ifbaxay wax loo yaqaano hacktivism. haddaba muxuu yahay hacktivism-ku? hacktivism-ku waa isku darka labada eray ee hacking iyo activism. waxaanu markaan hacking-ku ka gudbay in loo adeegsado keliyata meelo iyo cid gaar ah, waxaana bilaabay inuu noqdo nooc ka mid ah mudaharaadyada oo lagu muujiyo rabitaanka shacabka. waxaa tani tusaale fiican inoogu ah WikiLeaks oo aasaasay Julian Assange, noqdayna koox faafisa dokumentiyada classified-ka ah ee musuqmaasuqa, dembiyada dagaal iyo basaasitaanka dowladdu basaasaan shacabkooda, iyagoo xogtaasi u soo bandhigayay caalamka. activism-kuna wuxuu noqday meel dood la geliyo saxsanaantiisa, oo waxay ilaalinayaan cadaaladda isagoo burca digital ah. waxaa sidoo kale ka mid ah kooxaha activism-ka kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Anonymous, oo ah koox decentralized ah oo aysan jirin meel iyo cid gaar ah u maamusha, sida magacooda ka muuqatana ah koox aan la aqoon xubnaha ka tirsan, caana ku ah maskiga Guy Fawkes. waxayna badanaa u dhaqaaqaan arrimo ay ka mid yihiin xornimada internetka iyo inuu noqdo meel si xor ah cid waliba adeegsan karto. weerarada caanka noqday ee ay fuliyeen kooxdani waxaa ka mid ah Operation Payback, oo ahaa mid ay kaga falcelinayeen kadib markii la weeraray WikiLeaks. waxay sidoo kale kooxdani qayb ka ahaayeen kacdoonkii lagu magacaabi jiray Arab Spring ama gugii carabta oo dhacay intii u dhexaysay 2010 ilaa 2011. haddaba sidee hacking-ku u noqday mid ka mid ah awoodaha ay dowladda caalamku u adeegsadaan inay ku ilaashadaan danahooda? hacking-ku sida uu horumarayay waxay dowladuhu bilaabeen inay u adeegsadaan ilaalinta ammaankooda, ka soo bilow obarashinada militariga ilaa korontada iyo biyaha, maadaama xilligan meel kasta ay digital noqotay oo korontada iyo biyaha laga maamulo computers. waxaa qasab noqotay in si weyn loo ilaaliyo ammaankooda, waxaana dowladuhu samaysteen departmentyo gaar ah cyber security-ga, kuwaasoo dowladahaasi ka ilaalinaya weerarada cyberka. haddaba departmentyadan keliya lama samayn in lagu ilaaliyo ammaankooda, balse waxay sidoo kale u sameeyeen in lagu fuliyo weerarada cyberka sida basaasida wadamada kale iyo soo ururinta xogahooda. waxaa sidoo kale ay khalkhal ku geliyaan operationnada ka socda wadamada ay cadowga yihiin, kuna qaadaan weeraro cyber ah. waxaan soo qaadan karnaa Stuxnet oo ahaa weerar cyber ah iska kaashadeen Mareykan iyo Israel si wax lagu geystaan programka nuclear ee Iran. waxaanu malware-ka Stuxnet geystay khasaare aad u ballaaran. waxaa sidoo kale dowladuhu adeegsadaan cyber security-ga inay kula socdaan dhaqdhaqaaqa shacabkooda, waxaana tay noo muujin kara warbixinaha classified-ka ah ee uu daah qaaday Edward Snowden, oo aan filayo in badan oo ka mid ahay inay maqashay xogta ninkan. ugu dambeyn, hacking-ku waa meel maalin kasta isbeddel ka dhacayo, saameyn weynna ku leh caalamka. weerarada hacking-ku waxay noqonayaan kuwa adag marba marka sii dambaysa. maxay kula tahay mustaqbalka hacking-ku? ma sii qiyaasi karnaa sida uu hacking-ku u ekaan doono mustaqbalka dhow? arrintada nugula wadaag qaybta komitiga ana ilaawina kusoo biirto channelkeena KTech Somali. mahadsanid.